waxaan nasiib darro ah in laga soo bilaabo shirkii ugu dambeeyey aanu ku yeelanno 17 Sebtembar magaalada Muqdisho ay ka dambeysay waqti dheer oo intaa waliba iyadoo la arkay caqabado iyo carqalado jira iyo wax la isku diidan yahay ay noqotay inaan intaa la isu iman laga wada hadlin wixii jira iyo dhibaatadii ah la iska weydiin ma aha in la diidan yahay heshiiskii Muqdisho Sebtembar ma aha in la diidan yahay intii Dhuusamareeb lagu soo maray laakiin waxa uu hadalku ka jira waxay tahay fulinta wixii lagu soo heshiiyey waxa laga yaabaa in mararka qaarkood shaygan fulintiisa la isku khilaafo sidoo xataa siyaaq uu qoran yahay ama warku sidoo uu qoran yahay intaasoo dhan ba waxay sababayaan markaa inay keeni karaan haddaan kulamada iyo isu imaatinka iyo la joogtaynin in wax badan oo khaladi ay soo bixi karaan waxaan aad ugu mahadcelinayaa sidaan habeen dhoodba u mahadcelinayey saaxiibadaydii isku dayey in ay arrintaa xal ka gaadhaan oo ay isku dayaan inay kulamo la qaato laakiin waxaad moodaa sidii aan ugu talagalnay si aan ahayn inay wax badani u dhaceen oo isu bedeleen waxaa jirtay annagoo ka kooban 6 qof oo mas-uuliyiinta hadda shaqeeya ah inay noo yeedheen niman mas-uuliyiin madaxweyneyaal hore iyo musharaxiin ah iyo speaker iyo ra-iisul wasaareyaal hore oo lanagala hadlay nimanyow idinkaa hadda ku jira shaqadii caqabaadkanaana jira oo waddankii hor yaalle maxaa xala taasoo keentay markaa inaan 6 ahayn 3 madaxweyne state gudoomiyaha ku-xigeenka ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo 2 guddoon baarlamaan oo aqalka sare iyo golaha shacabka ah inay noqoto inaan u dirno oo la yidhaahdo balqoladaasi ha tagto 3dii qodob ee la isku hayeyna ha ka keeneen jawaab kaafi ah waxaan ka sugaynana waxay ahayd arrinta jawaabta laga sugayey inay 2 xaalo miduun timaado wixii waa la soo aqbalay qoraalkii in la keeno weliba annagoo sugaynay inay nagu soo noqdaan madaxdaasi gaar ahaan madaxweyne qoorqoor inuu noo yimaado mayo ma ahe waa lanoo iman karayey oo iyagii warqadda wada iyo wixii lagu soo heshiiyey madaxweyne qoorqoor iyo saaxiibadii way nagu soo noqon kareen amase shir baaba dhici lahaa golayaasha dowladda ay isugu yimaadaan oo madaxweynaha iyo ay yimaadaan ra-iisul wasaaraha iyo kulligooda hawshii lagu dhammaystiro ma ayna dhicin sidaan u sugaynaa waxaan maqlaynaa waa la aqbalay heshiiskii jawaabna kama aanaan helin qoraal ma aanaan helin oo lanooma imanin oo waa laydiin imanayaa lanama odhanin laakiin jawaabta baxday waxaan is leeyahay mayna ahayn jawaab munaasabkeedii ku baxday ama jawaab waktigeedii dhacday mayna noqon waxaan aada ugu talinayaa mas-uuliyaddu dadka ma wada raacayso cid kasta oo nimanka musharaxiintaa iyo mucaaradka iyo kulligood gar bay leeyihiin saa waxbay ka hadlayaan amaa waxa ay taabanaysaa waxaa weeyaan dadka mas-uuliyadda haya ee shaqada ku jira oon anugu ka mid ah markaan anugu caddeeyo inaan diyaar u nahay doorasha inay dhacdo inaan diyaar u nahay fulinta heshiiskii 17 Sebtembar Muqdisho aan ku gaadhnay inaan diyaar u nahay waddankaasi khalkhal oo dhan in laga ilaaliyo aan mar walbana kala hadlayna dowladda war arrinta siday tahay ha loo kala qaado oo wax walba xalka laga gaadhaya ha laga gaadho markaan ka hadlayna arrinta gedo oo kale waxaa laga hadlayaa doorasho waxaan haysanaa caqabad baana haysa dhib ah ciidan baa muddo 8 bilood 9 bilood bannaan jooga laga barakiciyey shabaabkii iyo u dhexeeya ciidan kale oo dowladdu aad moodo cidda laga xoreynayo aana garanayn oo mushkiladna haysato weeye arrintii gobolli maamulkii baa gacanta ka baxay isku duubnidii iyo dadkii iyo walaalnimadoodii baa dhibaato la dhex dhigay doorashada markay timaado maalintii ugu horreysay aan madaxweynaha iyo isku waafaqnay ra-iisul wasaaraha iyo kulligood in state walba 2 goobood lagu qabto garbaharey baa ka mid ahayd goobta labaad ee Jubbaland lagu qabanayo Kismaayo waxaan diyaar u nahay inaanu qabanno doorashada laakiin waxaa su-aal lahayd waxaan ka hadlaynay waxay ahayd war ha la abuuro environment ama qaab aanu doorasho ku qaban karayno ha la abuuro garbaharey maamul lagama joogo oo maamulkii jiray waan garanaynaa sida lagaga qaaday iyo sida meesha la geeyey amni laguma aamini karayo xaalad walba way nagu culus tahay waxaan idhi aan qabanno laakiin stateku hadduu doorashadii qabanayo xaq u leeyahay waxaa habboon in stateka loo daayo oo at least waxaanu ka wada hadalnay arrinta gadaha haddii 2 qaybood laga dhigo soo wareejinta maamulka iyo ciidamada la kala celinaya iyo dib u heshiisiinta iyo waqti way qaadan kartaa ilaahuma bil qaadato laakiin tan doorashooyinka iyo garbaharka ku saabsan waxaan is leeyahay muddo ma qaadan karayso waxaan ka digayaa oon maanta Soomaaliya xal u ahayn inaan fariimo aan jirin la isweydaarsado
doorashana la yidhaha hebel iyo hebel oo qabta hebel iyo hebel oona bannaanka ka jooga waxa ka iman karana aan garanayno soomaaliya hadday xamili karayso dictatorship iyo anaa idhi iyo sidan hala yeelo mayna burburteen dhibaataduna halkaa mayna gaadheen waan ka digayaa arrintaas ha la isu yimaado maxaa diidaya in la kulmoo la isu yimaado madaxweynuhu magaalada muqdisho la isugu iman karaa isagaa maamulo awooddeeda isagaa iskale waddanka oo dhan baa lagu soo dhoweyn karaa tan intuu yimaadaan furayaasha ku wareejin karaayoo doorashada rabo oo ku qabsan karaa waa madaxweynihii jamhuuriyadda maxaa kalifaya in la diido oo laga warwareego in la isu yimaado tan somalilan faragelintii intii laga daayo mas-uuliyiinta ka soo jeeda ha wada hadleen tan jubbaland labadaa marxaladood ha loo kala saaro waxaan rabaa shacabka reer gado inaan u sheego war dad walaalaha la yahay reer gado waa reer gado reer jubbaland waa reer jubbaland ha la ilaaliyo inaan dana kale waxba loogu dhibaata inoogu gala gaadhin aan ka shaqayno midnimadeenna iyo wadajirkeenna